waa tahay dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyay inana socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwali toddobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadli doonaa dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee magaalada Muqdisho ka jira gaar ahaan shilalka dhaca ee ka dhasha kala shakiga oo sababa in dadka rayidka ay ku dhintaan iyo dad mas'uuliyiin ah arbacadii aynu soo dhaafnayna waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya Cabbaas Siraaji barnaamijka waxaa marti ku ah General Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo horay u ahaa taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo maxaa sababa ayay kula tahay shilalka iyo dilalka sida sahlan uga dhaca magaalada Muqdisho ee dadka rayidka ay ku dhintaan ama mas'uuliyiinta qaarkood ba ay ku dhintaan hadda uma santar Ridwaan adiga iyo Voice of America ruuxantii waa ka ilaarinaya hal arrin waxaa yeelay aniga hadda si toos ah gacanta uma hayo rag badan oo iga fiican oo iga faral dhuudhuuna hawsha ayaa jira oo waa isleeyahay su'aalaha soo kooban laakiin haddii aan cabiro aniga sida aniga ila tahay waxaan aaminsanahay shakiga iyo khalaadka waxa keenaya shakiga maxaa yeelay cabsidu waa badan tahay waad ogtahay intaasoo sano oo qarax iyo mataqaana isqarxin lagu soo jiray taasaa marka waxay keenaysaa askariga ilaalada ah in uu khalad galo waxaa keenaysa cabsidaas faraha badan oo markasta lasoo gudboonaata maalimu marka feejignaantii badnayd baa waxay keenaysaa inuu mataqaanaa uusan hubsan qofkaasi war qofkaani cadow ma yahay mase ma aha mararka qaarkoodna inta badan markaad u fiirsato khaladaadku waxay dhacaan wakti ama hameen ah ama aroortii hore ah wakti aragtidu mataqaana ay xadiran tahay marka waxaan isleeyahay saldhig waxa u ah shakigaas cabsidaas badan oo cid walba ku beeran maxaa yeele qofku waa bini-aadan meeshan markuu waardiye ka hayo wuxuu ku khasban yahay marka ugu horeysa nafsadiisa inuu difaaco intuusan qaranka iyo saaxiibadiis kalaba wax tarin taasaa marka waxay keenaysaa yani inuu degdego intuu isagu inuu isdifaaco marka anigu waxaa isleeyahay khaladaadka cabsidaas faraha badanna waa u sababa waa gartay laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda xataa dad shacaba oo mootada bajaajta loo yaqaano wata in rasaas lagu furo oo qof mas-uula oo meesha maraya ciidankiisu ay ku furaan marka dhinac kale ma la dhihi karaa sharci darro iyo siyaasad la-aan dhinaca amniga ayaa meesha ka taagan waxaasoo dhan way dhici karaan laakiin ogow nimankani bajaajka way adeegsadaan hadda inta jeeroo bajaaj dad lagu qarxiyey ama dad ay ku dileen ma malayn karin so bajaajku marka safe maaha laftigiisa mogta baabuurta kama duwana wax kasta oo dhaqaaqa way isticmaalaan nooc kasta ha noqdee ano hadda mushkileed mu maqan laakiin bajaajka aad bay u isticmaalaan dadna waa ku dilaan waxna waa ku qarxiyaan marka taasina way keenaysaa waana naturaale waa iska caadi oo ay lamid tahay tababarka way ku xiran tahay qof si u tababaran yahay ilaa heerku diyaarsan taasna kolley lug way ku yeelanaysa waayahay ka sokow walwalka iyo cabsida jira ma isleedahay magaalada laftirkeeda ciidanka ku sugan waxaa laga yaabaa inaanay ahayn ciidan u diyaarsan inay wax waardiyeeyaan ama ciidan qaran inaan la oran karin arrintaas laftirkeeda soo ma aha in wax laga qabto waa run ahaantii ciidankani waa ciidan muddo badan joogay ciidan cusub oo meesha hadda la keenay maaha waa ciidan markii u yaraado 5 sano 6 sano joogay waxaan waayo arag ku noqday muddo badanna soo maray laakiin se haddii dhimasho waayo arag laguma noqdo moogtahay markasta taxadarkaaga inaad qabti waa ku khasban tahay laakiin ciidan cusub oo hadda la keenay maa ciidanka weligii jiri jiray oo intaasuu joogo intaasuu qaraaranso intaas ay ka dhimato oo intaas ay ka dhaawactay runtii ma rumaysan karta inta ayaga ka dhimato inta ka dhaawactay tirada hadii loo sheego marka arrintaasaas saldhig u ah ko waxaa saldhig kale oo meesha ku jirto oo iyadana taxgelinteeda mudan dawladda haddaa la doortay way cusub tahay ma saldhiganin madax cusub baa la sameeyey isbedel baa lagu sameeyey inkastoo ragga badankooda hadda amniga loo dhiibay ay yihiin rag hore uga soo shaqeeyey oo wixii aqoon u leh haddana isla markaas waxay u baahan yihiin dad badan baa ka dambeeyey dadkii sidii loo adeegsaday raggii ay wada yaqiineen ma wada joogaan rag cusub baa jooga isfahan badan bay u baahan tahay marka annaga soomaalida haddaan nahay anugu markas waxaan ku dhaliilaa wax walba waxaan rabnaa olanahay inay ku hagaageen
waxa overnight ku hagaagi kara ma jiro, waxa walba dulqaad bay u baahan yihin, waxa walba samir bay u baahan yihin, markaasaa guusha laga gaari karaa, laakiin wax overnight ku hagaagaya ma jiraan. sidee loo sugi karaa amniga dadka shacabka ah iyo dadka mas-uuliyiinta ah iyadoo laga taxadarayo inaanu khaladka noocan oo kalea soo noqnoqon? waa laga taxadari karaa oo aad waa looga taxadaray. waxa weeye horta tababar baa asal u ah ciidanka nabadgelyada, waxaa lagama maarmaana tababar joogtaa inay qabaan, tababar joogtaa in la siiyo, lagu celceliyo waa ko. mar labaadka waxaa laga rabaa shacabka guud ahaan inuu la shaqeeyo ciidanka si ammaan loo wadaado, maxaa yeele ammaanka shacabkuna waa u baahan yahay, ciidankuna waa u baahan yahay inay la shaqeeyaan oo waxa lagu wixii khatare dhici kara ay u gudbiyaan ciidanka. maxaa yeelay haddii shacabku sida dhabta ay ula shaqeeyaan ciidanka, waxaa shaka ku jirin, khaladkuna waa yaraanaya, dhimashaduna waa yaraanaysa, dhaawacna waa yaraanaya. laakiin ciidanku tababar lagaba maarmaan wey, inay tababar joogta ah ay ku jiraan oo marna laga caajisin. dadka qaarkood waxa ay ku doodayaan in magaalada muqdisho ay ciidankii ka farabateen marka la eego dadka baarlamaanka ku jira, golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale, ama taliyayaal ciidan ha noqdaan ama agaasimayaal ha noqdaan ama ha noqdaan madax kale, waxay isticmaalaan ciidamo gaar ah. sharikado ayaa jira, diblomaasiyiin shisheeye ayaa waddanka jooga, marka kumanaankaas kuna ciidanka ah mararka qaarkood nidaam iyo siyaasad iyo qaab ay ku shaqeeyaan aanay caddayn, soo laftirkeeda dhibaato maa? see lagu xadidi karaa hubkan faraha badan iyo ciidankan faraha badan ee weliba militariga ah ee magaalada ku dhex jira? wallahi arrintaasi waa run, dhibaato badan bay keenaysaa. hay-ado badan oo nabadgelyada suga oo ajnabiga la shaqeeyaan jira, ciidamadina jira, gudoomiyaasha gobolladan jira, yani wax badan oo waxaa jira oo rag hubaysan wata oo coordination badan uusan jirin, oo aan la ogeyn yaa inta ka shaqeynaya, yaa inta haya, oo keeni kara dhibta. waa runtaa wey, aad bay u tahay. laakiin waxaan isleeyahay ciidanka hadda jira jooga amase dadka hadda jira ee nabadgelyada sugaa dad cusub maaha.